koofindhe waa u laagay oo birta ayuu ka jaray waa iska soo saareen ciyaaryahanada xulka gobolka Awdal way daafacanayaan way ka soo laageen ciyaaryahanada culusay lambar 10 xulka gobolka Awdal waa laga soo qabto Marodi-Jeex ayaa xilligan haysta guuleedkiisa mahad saaq ayaa ku qabtay madax waxa uu dhiibay gool guuleedkiisa xulka gobolka Marodi-Jeex ayaa goolkiisii koowaad ee ciyaarta la yimid guuleedkiisa oo dhinaca weerarka uga ciyaaraya xulka gobolka Marodi-Jeex ayaa markaasi kubaddaasi u dhaliyay Ilyas Luka xulka gobolka Awdal hasa Ilyas Luka asaate mahad afra ayaa kubaddaasi tuuray saaq waa ciyaaryahanka daafaca bidix xulka gobolka Awdal uga ciyaaraya saaq gool ciyaaryahan culusay ciyaaryahanka lambarka 10aad u xidhan xulka gobolka Awdal kubaddiis ku dhiibasha oo ay ka soo bilaabeen bartanka garoonka oo uu Ilyas Luka laagay oo uu laagay saaq oo saaqna uu soo daadiyay kubadda Luka mahad Gucci Cabdiraxmaan Dhago Cabdikariim Gucci kabtanka xulka gobolka Marodi-Jeex waxa uu tuuray koofindhe أمر شحنة كليميكا إلى تكبس فريكا عاتيك جوتشي عبدكريم جوتشي ودلمري شبكاتنا تكبد داسي هو السمري عبدكريم ماري عبدكريم كفتنا مروتشاحة عاتيك وصباسي حداري عاتيك يدرسو لا تخار علي يسكن باشا مروتشاحة خار علي ماري خار علي والسورقات خار علي الدفاع الكبكا أوضل عاتيك على مسو كويتا با gooyaal baad ku soo biiray garoonka ciyaartooyga xul gobolka Awdal ikana dhacmay gooyii hore xul gobolka Batuna ya salaam kubadda saatan Afrika u sudaarniya Khadir Haasarda kubadir Khadir ila takubadaasi wallahi Ahmed Halchano waa difaac ibnaa ciyaartooyga xul gobolka Awdal takubadaasi waa isku diyaarniya ciyaartooyga halka isku qalbi difaac يا سلام كور ما نغطي وصبا زعلتي عبدكريم جوتشي حمسي كريستيانو واتمدحه با جولاي وقفتي عبدكريم جوتشي كابتنka xulka gobolka Marodi-Jeex waxa uu dhiibay Idris Tanyero kubaddaasi ka daba tuurid ayuu sameeyay Cabdikariim Gucci gool madaxa Cabdikariim Xuseen Xirsi Cabdikariim Gucci waa kabtanka xulka gobolka Marodi-Jeex daqiiqadii ugu dambeeyay ee ciyaarta dhaxmaraysa garoonka weyn ee Hargeysa Stadium ku dhaxmaraysa xulalka kubadda cagta Khalid Hasan xilligan waa soo laaday way dhamaatay ciyaartu waxa ay ku soo dhamaatay 2-1 ay ku guuleysteen xulka gobolka Marodi-Jeex